بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبضي داوديال meel kastoo aan la socotaan dunida dacaladeeda waa telefishinka sahan waxaan waraysi la leenahay injineer Xuseen Aadan Cige Xuseen Dayr oo wada garanaysaan xilal wasiirnimo iyo afayeenimo ka soo qabtay xukuumadii hore imikana ah maxay xogayaha guud ee gudiga la dagaalanka iyo maxay ka hortagga cudurka COVID-19 muddan dambana waxa weeye waana qoraa waana aqoonyahan inta badan arrimaha caalamka qoraal badan ka sameeya waraysigan waxaan ugu tala galay bal inaan xoog inta badan saaro waftiga madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo hogaaminaya dalka Mareykanka ku sugan waxyaabihii uu qabsoomay ugu dambeyn waxay la kulmeen jaaliyadda reer Soomaaliland ee dalkaasi Mareykanka iyagoo kulamo kale u harsan bal marka hore Xuseen ku soo dhaw Sahan TV waxaad nooga warantaa bal intaad kala socoto maxaa uga soo kordhay madaxweynaha iyo waftigiisa safarka uu ku marayo dalka Mareykanka sidaad soo aragtaa safarka hadda labada su'aalood saraaciyo Mareykanka ku tagay xilligan Mareykan maxaa ka soo kordhay waa su'aal wanaagsan Sahan TV aad u mahadsantihiin fursadan qaaliga ah waan idinku bogaadinaya guud ahaanba sida ugu heelantihiin danaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo guud ahaanba dadka afka Soomaaliga ku hadla oo su'aalaad wanaagsan Axmedow madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo wafdi hogaaminaya maalintii 8aad ayaa waxay ku guda jiraan safarkii ay ku joogeen dalka Mareykanka caasimadda laga hago siyaasadda caalamka ee la yiraahdo Washington DC run ahaantii wafdiga madaxweynuhu hogaaminayo iyo madaxweynuhu socdaalkoogaas waa socdaal taariikhi ah socdaal ma garanaysa mudan weeye in mataqaan si fiican la isku dul taago guulaha Soomaaliland uga soo hoyday ugu horeyn madaxweynaha waxa lagu qaabilay Axmedow protocol iyo hab maamuus la mid ah madaxweynayaasha adduunka lagu qaabilo haddii ay tahay nabadgelyadiisa haddii ay tahay ma garanaysa hab maamuuskii loo baahnaa in ma garanaysa lagu qaabilo madaxda adduunka ee dalka Mareykanka ku jooga booqashada tusaale waxaan u soo qaadanayaa muujinta astaanta qaranku waa arrin muhiim ah madaxweynaheena waxa weeye meel kasta oo mataqaana haday tahay golayaasha sharci dejinta Senatka iyo golaha Capitol Hill guriga la yiraahdo oo golaha wakiilada Mareykanka iyo golaha odayaasha Senatka ay maadaynayso gurigooga madaxweynuhu markuu qaybaha kala duwan ee xildhibaanada la shirayay calanka Soomaaliland meel kasta oo shir ku qabtay madaxweynuhu ama oo cid kula kulmo calanka Soomaaliland uu yaala sidoo kale baabuurta madaxweynaha lagu qaaday ee hab maamuuska loogu talagalay kuwana calankii mataqaana astaantii qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland way ka muuqatay marka hab maamuuska madaxweynaha lagu soo dhaweeyay habka loo qaabilay muujinta astaanta qaranka iyadoo madaxweynaha nabadgelyadiisa iyo amnigiisa iyo badqabkiisa ay la wareegeen hay'adaha u qaabilsan dawladda Mareykanka inay ilaaliyaan ay badqabkooga iyo fayaqabkoogaba ay ka hawlgalaan wufuudda caalamka ee Mareykanka joogta madaxweynaha waxa si toos ah ma garanaysa nabadgelyadiisa ula wareegay hay'adda sirdoonka ee arrimaha gudaha iyo hay'adda la yiraahdo Homeland Security amniga qaranka Mareykanka ee gudaha marka madaxweynuhu iyo muxuu ahaa waftigiisu run ahaantii si aad u qiimo badan baa loogu soo dhaweeyay taas waa maamuuskii 14kii bishan ku jirno madaxweynuhu wuxuu khudbad dheer oo qiimo badan leh oo indhaha iyo dhagaha soo jiiday dadka wax laga weydiiyay siyaasadda Mareykanka uu ka akhriyay macadka caalamiga ee lagu darso siyaasadda caalamka ee la yiraahdo Heritage Foundation khudbadaasi waa khudbad aad u qiimo badan ayuu madaxweynuhu u ka jeediyay halka taasoo soo jiidatay dadka siyaasadda Mareykanka u dhuun daloola ama wax laga weydiiyo ee ay ka mid yihiin labada golaha Senatka iyo golaha wakiilada ay ka mid yihiin labada xisbi ee isku bedbedela talada dalka Mareykanka xisbiga dimuqraadiga xisbiga Republicaanka ama jamhuuriga siyaasiyiin hore xukuumadii hore ka tirsanaa xogayaal arrimo dibadda xukuumadii hore ka tirsanaa Mareykanka safiirro hore aqoon-yahano hore oo u dhun daloola habsami socodka iyo geedi socodka siyaasadda Mareykanka khudbadaasi aad bay u soo jiidatay waxaana iba fur u noqotay in madaxweynaha iyo waftigiisu ay albaabo badan u furmaan oo ay ma garanaysaa la kulmaan kulana aad u fara badan oo markii hore la islaamalaha dhici maayo kulanka noocaasi haddii ay tahay hay'adda maamulka ama hay'adda fulinta ee madaxweynuhu mutaqa xukumo madaxweyne Joe Biden arrimaha dibadda waaxda gaashaandhigga waaxda ganacsiga waaxda horumarinta mataqaana iskaashiga caalamiga intaaba waxa kala kulmeen dadkii ugu muhiimsan ugu qiimaha badnaa madaxweynuhu khudbadiisan waxyaabo badan buu kaga hadlay wuxuu kaga hadlay guud ahaanba
caalamka siyaasadda maanta meesha marayo iyo waxay ugu muhiimsan ee dhegta lagu haya waxa weeye dagaalka Ukraine ka socda dagaalka Ukraine iyo Ruushka ka dhex socda ee Ruushku Ukraine ku soo qaaday qaxitaanka iyo qaabka maanta Ukraine tahay waxay madaxweynuhu khudbadiisa ku sheegay inay xasuusinayso 33 sanadood ka hor Somaliland wixii ku dhacay oo kale wuxuuna aad uga tacsiideeyay oo uu sheegay inuu aad uga xun yahay yani waxa Ukraine ka dhacaya sababtoo ah wuxuu shakhsiyan sheegay inuu goobjoog ahaa dadka Somaliland oo 33 sanadood ka hor qaxaya la bamgaraynayo dhibaato loo geysanayo isla markaana ay ku laadeen in ka badan 50,000 oo qof 1 milyan oo qofna ay ku barakaceen kuwa qaxoonti noqday iyo kuwa dalka gudihiisa waxa isla khudbadii baynu ku jirnaa Maxamed Axmedow khudbadaas wuxuu mataqaana hoos ka xariiqay madaxweynuhu Somaliland halkay ka soo kacday halkay ka soo kabatay halkay maanta marayso dimuqraadiyadda ka hirgashay horumarka ka hirgalay nabadgelyada ka hirgalay buqacada istaraatiijiyadda Somaliland ku taalo guud ahaanba danaha iyo mataqaana yani arrimaha masiiriga ay Mareykanka iyo Somaliland wadaageen ay ka mid tahay nabadgelyada xasiloonida dimuqraadiyadda ku dhaqanka hanaanka dimuqraadiyadda ay ka mid tahay dhowritaanka xuquuqda bini'aadamka ay ka mid tahay xorriyadda qofka iyo dhowritaanka sharaftiisa ay ka mid tahay saxaafad xora oo aan iyagu cadaadis iyo cagajuglayn midna aan ka baqayn waa arrimaha aasaasiga ee dawladda Mareykanka iyo Somaliland wadaagaan in ay Somaliland mataqaana ay ka jirto wuxuu kaloo sheegay mandaqada geeska Afrika oo ah mandaqada ay colaaduhu ku badan yihiin inay Somaliland ka mudan tahay ay tahay buqacada kaliya ee nabadgelyo iyo dimuqraadiyad iyo horumar intaas ay ka hirgeleen wuxuu Soomaaliya 30 sanadood Mareykanku ka waayay inuu Somaliland ka helayo wuxuu hoga tusaaleeyay sidii Somaliland ay magaranaysaa ay u buuxisay dhammaan shuruudihii caalamku uga baahnaa aqoonsi markii madaxweynuhu khudbadiisa si fiican buu ugu dheeraaday waxa isna khudbada madaxweynaha ku soo dhaweeyay gudoomiyaha macadka Heritage ninka la yiraahdo Kevin Roberts oo run ahaantii isagoo ka bareero sheegay Mareykanka sharaf bay u ahaan lahayd haddii uu noqdo dalkii ugu horeeyay ee Somaliland aqoonsada marka guud ahaanba madaxweynuhu khudbadiisaasi wuxuu ku kasbaday sympathy ama yacni danayn fara badan oo ka timid dhammaan golayaasha sharci dejinta ee Mareykanka Senatka golaha aqalka sare iyo aqalka hooseba xubno fara badan oo ka tirsan hay'adda fulinta ama dawladda xukuumadda Mareykanka muxuu ahaa rag fara badan oo aqoon-yahana marka guud ahaanba maalintii 8 ayaa madaxweynaha u socota si fiican oo u socdaan hawlo waa tahay maxaa marka loo yimaado dalka Mareykanku 30 sanaba uu daawanayay siyaasadda geeska Afrika iyo dalalka geeska Afrika Soomaalidana inta badan Muqdisho buu inta badan xiriirkiisu ahaa maxay iska bedelaysaa siyaasadda Mareykanka siyaasadda Mareykanka waxa iska bedelay horta siyaasadda Mareykanku danay ku saabsan tahay dano ayay saldhig ku haysaa ee saaxiibtinimo iyo calmasho iyo mataqaana يعني علاشو إنه حشو دلالك ودنت كلية دم بو كراعة لكن سوى حكلا كم الدنيا سياسة أمريكا يكون مد ميل مر والبتاجر معها ومد متقوى ذيكته دناها هي مساليح ده دولة أمريكا ولاده هاي يو كو أمني إليهين هذه سا قرنكم وحياة بدن بايس بدري أحمد نمبر 1 أمريكا وحو فراغ وحو كود جوجا قوس يفرق مرن كتاجي هاي hangaltaagii uu hangaltaagay 30 sanadood inay Soomaaliya dawladda ka soo baxdo faramaran buu ka joogaa Soomaaliya wuxuu ka doonayay inay noqoto dal xasiloon hanaanka dimuqraadiyadda lagaga mataqaan dhaqmo dadkiisa xuquuqda ummadooda la ilaaliyo argagixisada magaranaysa la dagaalamo hanaanka dimuqraadiyaduna uu ka hirgalo taasi 30 sanadood ay suurtagal noqon weyday marka waxyaabaha adduunka maanta isku bedelay waxa kamid ah waxaad moodaa Axmed in siyaasadda adduunku ay ku socoto xawli fara badan oo aan laga saadaalin karin haddii ay tahay xagga nabadgelyada iyo dadka xagga horumarka waxa soo baxay quwado fara badan oo markii hore la islahaa reer galbeedku ay lahaayeen soo bixi maayaan ayaa waxa weeye Shiinaha kamida waxa kamida ma garanaysa Turkiga kamida wadamo fara badan oo ma garanaysa quwad dhaqaale leh ayaa adduunyada ka soo baxay waxa dhacaysa in yani dagaalkii qabooba oo nooc kale waji kale inuu adduunyada ku soo kordhay maanta waxa tusaale inoogu filan in Ruushku uu dalka Ukraine oo dal madax bannaan oo dimuqraadi ahaa uu galay oo magaranaysa weerar ku qaaday burburka iyo baabaa ka socdan way noognaay marka Mareykanku wuxuu arkayaa in gorgorkantii siyaasadaha iyo magaranaysa xulufaysigii uu beesha caalamka ku lahaa lagaga awood batay
mid dhaqaalena lagaga awood batay, xaggii horumarka lagaga awood badanayo, teknolojiyada lagaga awood badanayo. Markii hore adduunyada waxay ahayd Warsaw Pact oo reer bariya iyo NATO oo mataa reer galbeeda. Imika Ruushka iyo Shiinuhu waa xulufo dhow oo saaxiibo, waa laba quwadood oo waaweyn oo ka awood badan dhinac walba marka loo eego, dad ahaan, technology ahaan, ciidan ahaan u dhigma ama ka awood badan Maraykanka iyo xulufadiisa. Marka Maraykanku wuxuu ku baraarugay 30 sannadood ayuu wuxuu ka maqnaa yacnihii saaxada Afrikaanka ama buqacda geeska Afrika oo uu lahaa dagaalkii qabooba wuu dhammaaday. Sidaas daraaddeed waxa weeyaan uma baahni inaan mataqaanaa saaxiibo cusub ku samayso. Markaa Soomaaliya oo uu ka quustay kow soo laba kaclaynta dagaalka qabooba adduunka laba, Maraykanka oo Somaliland u arkaa inay wadaagaan himilo iyo hannaan iyo mabaadi' aasaasi ah oo ay ka mid tahay dimuqraadiyaddu, nabadgelyadu ay ka mid tahay, horumarku ay ka mid yihiin, ay ka mid tahay xuquuqda bini'aadamku. Marka isbeddel baa ku dhacay 30 sannadood sidii u arkay Somaliland si ka duwan. Intaaba waa la socday, waa run ahaantii oo de waa sidaad sheegtay way inuu mataqaan ka warqabay Somaliland waxa ka socda. Maanta waxa ku kalifay waxa weeyaan adduunkii isbeddelka ku yimid ayaa wuxuu sababay inuu Maraykanku siyaasadiisii bedelo oo uu Somaliland u arko dal uu wax la qabsan karo. waa tahay markii uu qolada maxay arrimaha la kulmay Congress-ka waliba madaxda arrimaha dibadda waxaa jiray inay abuureen mooshin ah in wax la wada qabsado oo Somaliland iyo oo maqaal dheer ay ka soo saareen. waliba ka maxaa kaaga baxay? Waxa iga baxay horta isla 14 madaxweynuhu markuu khudbadda ka jeeday macadka Heritage isla maalintii waxa soo saaray qoraal dheer, warqad dheer oo taad sheegaysa. waxa soo saaray 8 xildhibaan oo ka tirsan guddida arrimaha dibadda ee aqalka wakiilada. waa guddida sare ee arrimaha dibadda iyo xiriirka caalamka ee golaha wakiilada ee mataqaan House-ka la yiraahdo Congress-ka Maraykanka. warqad dheer oo mug iyo miisaanba leh ay wax u direen xogayaha ama sida inagu naqaano wasiirka arrimaha dibadda ee Maraykanka ninka la yiraahdo Antony Blinken. Antony Blinken waxay warqadiisa ku sheegeen in la gaadho xilligii Maraykanku si toos ah oo xiriir toos ah mid dhaqaale, mid nabadgelyo iyo mid iskaashiba uu la lahaan lahaa oo la yeelan Jamhuuriyadda Soomaaliland. waxyaabo badan bay warqadooda sabab uga dhigeen Axmedow. waxa number 1 deganaanshaha iyo nabadgelyada Soomaaliland ka hirgashay 30 sano ugu dambeeyay. ku dhaqanka hannaanka dimuqraadiyadda iyo xisbiyada badan oo Soomaaliland ay tusaale u tahay guud ahaanba Afrika. waxa kaloo ma garanaysaa yiraan buqacda istaraatiijiyada ay Soomaaliland ku taalo iyadna waa laga maarmaan. waxa kaloo mataqaanaa Xuseen dagaalka Itoobiya ka socda iyo gobolka geeska Afrika dhibaatada ku keeni karo iyo deganaansho la'aanta ku keeni karo. waxa kaloo Xuseen awoodda uu Shiinuhu ku leeyahay guud ahaan wadamada Itoobiya, Kenya, Djibouti, Suudaan oo uu ku soo noqday mataqaan dagaalkii xukunkii militariga Eritrea oo qayb ka ahayd xasuuqii loo geystay dadka Tigreega. waxyaabahaas oo dhan marka la isku soo xooriyo Maraykanku wuxuu yidhi meesha kaliya ee nabadgelyo ee magaranaysa dimuqraadiyadda ee hannaanka iyo himilooyinka ay qarannimadeena ku dhisan tahay ay ka hirgaleen waa Somaliland. marka wasiirka arrimaha dibadda waxay fareen waa inaad ka soo tala bixiso habkii Somaliland loola yeelan lahaa xiriir caalami ah. dabeedna rag ka tirsan iyo golaha odayaasha 4 nin oo golaha odayaasha ka tirsan oo isku dhafo labada arrinta xiisaha leh Axmed waxa weeye awal mabaadi'da way ku kala duwan yihiin labada xisbi isku badbedela Maraykanka Republicanka iyo Jamhuuriga iyo Dimuqraadiga. iminka arrinta Somaliland baa labada xisbi midaysay. waad ogtahay Trump wuxuu ahaa nin mataqaanaa aad u fudud oo ma garanaysa adduunyada wax la wuxuu doonay iska yiraahdo xisbigiisuna waa xisbiga Jamhuuriga ama mataqaanaa Republicanka. arrinta Somaliland waa arrinta midaysay xisbiga Jamhuuriga oo iminka mucaarida iyo xisbiga Dimuqraadiga oo ah mataqaanaa xisbiga talada dalka haya. waxay ka midaysan yihiin in Somaliland uu Maraykanku xiriir toos ah la yeesho oo mataqaanaa waxay soo saareen waxa la yiraahdo Somaliland Partnership Act. waxa weeyaan xeerka iskaashiga Somaliland iyo Maraykanka u dhaxeeya. waa kay 79 u sameeyeen Taiwan baa dadka saas weey aad baad uga warqabtaa kay u sameeyeen wadanka Taiwan 79 ee la yiraahdo Taipei Act baa la yiraahdaa. ka kula lamida in Somaliland loo sameeyo. waxay xuseen xiriirka ay Somaliland 2020 ay la bilowday Taiwan inuu yahay mid ku dhiirigelinaya dawladda Maraykanka inay xiriir toos ah la samaysato Somaliland. marka golaha wakiilada oo la yiraahdo House of Representatives
iyo senatku labaduba waxay ka midaysan yihiin inuu maraykanku uu magaranaysa Soomaaliland la yeesho xiriir toos ah. waxay fareen wasiirka arrimaha dibadda inuu si sanadla ah golaha u horkeeno Soomaaliland maxaa dhaqaale la siiyay, Soomaaliland horumarinteeda maxaa laga qabtay, xagga amniga maxaa iskaashi laga leeyahay, dadka Soomaaliland dariska ee u baahan inay Maraykanka yimaadaan qunsuliyadii u adeegi lahayd ma laga furay mataqaanaa Soomaaliland magaalada Maraykanka loo yeedhay tii halkan iyo macadkii mataqaan daraasaad Maraykanka iyo Soomaaliland waa macad mataqaanaa u adeegaya danaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo danaha Maraykanka. marka la isku soo wada xooriyo madaxweynaha iyo waftigiisu waxay aad ugu guuleysteen si farshaxanimo leh ay ugu guuleysteen inay labada gole oo sharci dejinta ee Maraykanka ee aqalka sare ee aqalka hoose qadiyadii Soomaaliland si farshaxanimo leh ay uga dhaadhiciyaan. dawladda Maraykankana way ka duwan tahay dawladaha kale caalamka badankooda. labada gole ayaa soo dejiya barnaamijka ay xukuumaddu ku shaqaynayso, xukuumadduna way fulisaa. marka wax aad u qiimo badan oo runaantii lagu faani karo oo 30 sanadood ee aynu jirnay tallaabadii ugu muhiimsanayd ay xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi iyo waftiga la socda ay qaadeen. waa tahay jaaliyadii madaxweynuhu la kulmay khudbad dheer buu jeediyey, doodana waa la isweydaarsaday, aqoon-yahan badan baa ka soo qayb galay oo Axmed Ismaaciil Samatar iyo rag kaloo badani ay ku jiraan. maxaad marka doodaha iyo kulanka jaaliyadda aad eegtay sidoo u dhignaa waa la soo buuxiyey, waa la camiray, aad bay maqaaxideena u shidnayd oo si weyn baa maxaayaday madaxweynaha loo soo camiray hadaladii ka baxayay meesha. run ahaantii waxay taasi muujisay qiyamka iyo quwadda iyo qarannimada Jamhuuriyadda Soomaaliland ay yeelan karto markaynu ka midowno qadiyadda guud ee gooni-sutaaga Soomaaliland iyo qarannimadu cid walba waa u dan, cid walba waa u ehel, cid walba waa u hooy. marka macaarid iyo muxaafidba rag xitaa macaarid ahaa oo markii hore hadli jiray oo waxay doonaan dawladda Muuse Biixi ku oran jiray dawladii hore ayaa meesha fadhiyay. waxay arkeen qadiyadda iyo qarannimada Soomaaliland inayna cidna u gaar ahayn, xisbina inayna u gaar ahayn, Muuse hadduu berri ka tagana inuu ku kaloon sii wadi doono. marka jaaliyadaha guud ahaanba cariga Maraykanka iyo Canada si fiican bay madaxweynaha waftigiisa u soo dhaweeyeen. waxay ma garanaysaa kala qayb galeen doodo fara badan qadiyadda Soomaaliland sidii loo iibin lahaa. Professor Samatar baa ka mid ahaa, Bulxan baa ka mid ahaa, waxaa ka mid ahaa ma garanaysaa wasiirka arrimaha dibadda oo isagu mataqaanaa hadalka qaybinayay, waxaa ka mid ahaa ma garanaysaa ninka jaamac Muuse jaamac baa ka mid ahaa. waftigeenii mataqaanaa madaxweynaha la socday Maxamed Kaahin Axmed, Salabaan Cali Koore, Shukri Xaaji Bandare, guud ahaanba waxa weeye heavyweight yani tiim aad u culus oo qadiyadda Soomaaliland iyagana iibin kara. waxana waa nasiib Axmedow. waxa dhici karta xukuumadii hore inayna intaa fursad u helin, laakiin xukuumadda Muuse fursadii ay heshay ee imika mataqaanaa Maraykanka ka heshay si fiican bay u iibisay. waxa xusid mudan dadaalka iyo juhdiga ay sameeyeen laba nin baan ka xusayaa ma garanaysa waftiga. marka madaxweynaha laga tago waftiga hogaaminaya khudbadiisii marka laga tago protokolka lagu soo dhaweey marka laga tago wasiirka arrimaha dibadda Dr. Ciise Kayd iyo Dr. Bashiir Sheekh Cumar Good oo ah wakiilka Soomaaliland u fadhiya magaalada Washington. labadan nin waxay sameeyeen dadaal weyn oo qayr caadi ah, waxana wuxuu ku yimid juhdigii iyo dagaalkii ay galeen oo ay ma garanaysaa run ahaantii haddii ay tahay saaxiibo Soomaaliland ay uga dhex sameeyaan golayaasha sharci dejinta Maraykanka, haddii ay tahay inay mataqaanaa iibiyaan qadiyadda Soomaaliland, haddii ay tahay inay la kulmaan hay-adaha fulinta ee Joe Biden, arrimaha dibadda way la kulmeen, wasaaradda ganacsiga way la kulmeen, bangiga adduunka way la kulmeen, hay-adda lacagta adduunka way la kulmeen, hay-adda cimilada adduunka way la kulmeen. waxay la kulmeen muxuu ahaa ganacsadayaal fara badan oo magaranaysa danaynaya inay Soomaaliland maal gashadaan oo iyaguna la kulmay dhigoodii waftiga madaxweynaha Soomaaliland la socday ee magaranaysa ganacsadayaashii waaweyn ee Soomaaliland oo Maxamed Siciid Habshiil ka mid yahay, uu ka mid yahay mata Telesom gudoomiyaha Telesom ka mid yahay, Maxamed Aw Siciid uu ka mid yahay. aduu shirkadda Habshiil International Group iyo Telesom iyo Maxamed Aw Siciid Group iyo qolooyin kale oo fara badan waxa weeyaan waxay la kulmeen dhigoodii rag dawladda inay investment ku sameeyaan xagga tiknoolajiyada iyo xagga horumarkaba. waxa kaloo la kulmeen Chamber of Commerce ama rugta ganacsiga Maraykanka. marka run ahaantii waxay ahayd yani fursad qiimo badan oo qaranka Soomaaliland u soo hoysay in
guud ahaanba maraykanku maanta ku baraarugo oo yidhaahdo waxa innaga inoo mudaneen mudnaanteena koowaad waxay ka guureen maraykanku oo ay u muuqatay inay ka guurayaan wixii la odhan jiray single Somalia policy oo ah Soomaaliya oo dhan ba inay hal siyaasad kula wada dhaqmaan siyaasaddii baa la kala qaado tii Somalilandna gaar baa laga dhigay dowlad track bay u leexdeen dowlad track buu leexday maxay siyaasad laba dhinac waxaad soo hadal qaaday wakiilka Bashiir waa nin markii horena dalalka Imaaraadka iyo Carabta joogay waa nin aqoon-yahan qoraal badan oo adduunka wax ka qora waa sida adigu baad la socoto waa nin luqado badan ku hadla Ingiriiska Faransiiska Carabiga isugu mid yihiin waa taabatay ninkaasi dadaal badanna wuu sameeyay maxaad naga kordhin kartaa ninkaas Bashiir Sheekh Cumar Good horta waa nin reer Somaliland oo magaranaysa aqoon-yahana xulashooyinka gaarka ah run ahaantii in hoosta laga xariiqo mudan ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland uu sameeyay markuu xulanayay howlwadeennada xukuumaddiisa noocay doonaanba ha ahaadaan ayuu xukuumadda dadka ugu quality-ga wanaagsan leh anigu waxaan u arkaa Bashiir inuu yahay aqoon iyo magaranaysa yacnihii muxuu ahaa asad ama hanti ummadda Somaliland ay leedahay oo ah yacni nin u dhashay waddankii Somaliland ku dhashay u dhashay aqoontiina leh waxa la arkaya kartidiisa iyo awoodiisa maanta yacni waxa suurta galay ya qayb weyn buu ku leeyahay isaga wasiirka arrimaha dibadda marka geedi socodka arrimaha dibadda ee Somaliland gaar ahaan isku xidhanka beesha caalamka reer galbeedka ah gaar ahaan oo Maraykanku horseed ka yahay iyo Somaliland inay isku xidhmaan Bashiir number 1 waa tahay wasiirka arrimaha dibadda markuu hadlayay Dr. Kate waxa uu jaaliyadda ku yidhi labada geel iskaga keen darina geela arrimaha dibadda iyo geela arrimaha gudaha macnaha isagoo ka socday waxa gudaheena yaala iyo waxa dibadda yaala aniga geelaygu waa ka arrimaha dibadda buu yidhi markaas arrimaha dibadda igula socda maxaa hadalkaas kaaga baxay hadalka waxa iga baxay arrimaha gudaha waa qadiyad hoose oo gudaheena ah ama xisbiyaha ahaadeen ama waxay doonaan ha ahaadeen ama yacni tabashooyin ha ahaadeen markaynu qurbaha joogno ee aynu qadiyadda arrimaha dibadda ka sheekaynayno hal mid baynu nahay hal ummad baynu nahay Somaliland baa la yiraahdaa Jamhuuriyadda Somaliland baa la yiraahdaa qof walba juhdiga dadaalka gelin karto geedi socodka arrimaha dibadda igala shaqeeyin buu jeedo waa tahay barnaamijka xalay waxa narrator ka ahayd ama MP ka ahayd daadinaysay gabadh reer Somaliland Muna Koosar Cabdi waana telefishin caalami ABC bay ka shaqeysaa warbixino la yaab lana way ka diyaarisaa arrintaas oo kale marka wariye caalami sida Raago Omar oo kale Moy Faarax iyo arrimaha noocaas dadka magaca leh ay saa ugu soo dhiiradaan qadiyadoodii iyo dadkoodii wax la qabstaan ma muuqataa in isbedel yimid Somaliland xitaa dadkeedii magaca lahaa ay ku dhiiranayaan inay qadiyadooda iib geeyaan bariyo waxaad moodaysay in la oran jiray waa orodyahan Soomaaliyeed waa wariye Soomaaliyeed waa fanaan Soomaaliyeed iyadoo Soomaalinimada in laga tagay laakiin imika dadka waa wariye Carbeed Carabti Sacuudiga iyo Imaaraadka iyo Kuwait buu yahay intaas oo kale xalay daray sameeynaysa maxaad u malaynaysaa in soo dhiiradaan Muna Koosar Cabdi waxay ku dhalatay magaalada San Diego ee muxuu ahaa waddanka gobolka California oo gabadh Somaliland ka soo jeeda oo meesha ku barbartay oo ka shaqeysa telefishinada ugu caansan adduunka la yiraahdo ABC si fiican bay u daadahaynaysay waxa weeye reer Koosar Cabdi ay ka soo jeeda Cabdiqaadir Koosar iyo dareerihii halgankii Somaliland lagu yaqaano run ahaantii Muna waxay aad iyo aad ugu amaanan tahay warbixinta qiimaha faraha badan leh iyo habka ay u dhigtay aqoonta ku dhigan tahay fahankeeda ma taqaanaa yacni Maraykanka ay fahamsantahay iyo sida isku qabadsiisay qadiyadda Somaliland iyo ma garanaysaa danaha Maraykanku arrimaha dimuqraadiyadda arrimaha horumarka nabadgelyada deganaanshaha Munay waxay ka mid tahay dadka loo baahan yahay in ma taqaan Jamhuuriyadda Somaliland waa dadka wax badan ku soo kordhin kara iyada iyo Raago Omar iyo boqolaal la mid ah oo aqoon yahana oo aynaan ogeyn baa jira nasiib darradu waxa weeye xukuumaduhu way ku kala wanaagsan yihiin muxuu ahaa hawlgelinta dadka mataqaan dadka qurbaha ku nool waxaad moodaysaa xukuumadda Muuse Biixi Cabdi inay imika ay ku baraarugtay awoodda ay qurba joog leeyihiin qurba joog laga faa'iideysto xoogga dadka qurbaha jooga haday tahay aqoon iyo haday tahay ictiraaf raadin iyo haday tahay sababta wasiirka arrimaha dibadda ee imika talada haya Ciise Kayd waa nin qurba joog wuxuu fahansan yahay awoodda ay qurba joogu iyo waxay dalkooda ku soo kordhin karaan
marka waxaa ka mid ah yacni waxa weeye waa maxsuulkii ummadda jamhuuriyadda somalilan wixii uu soo kordhay ayay muna ka mid tahay waana muxuu ahaa aad baan ugu diirsaday run ahaantii inan reer somalilan oo faamiligii koosaar cabdiqaadir koosaariya ka soo jeeda oo run ahaantii yacnihii daawadayaasha maraykanka si qiimo leh oo farshaxanimo leh uga dhaadhicisay qadiyadda somalilan marka waan kula qabaa waxay ahayd mataqaanaa arrin aad u qiimo badan fursad qiimo badan ugu dambeyntii maxaad is leedahay marka intaa aynu aragnay laga yimaado wafdigaasi maraykan way kala imanayaan wafdigaasi maraykan waxay kala imanayaan run ahaantii dhowr arrimood iyagana waxbaa laga filayaa innagana waxbaa laynaga filayaa innaga waxaa laynaga filayaa ee madaxweynaha iyo xukuumaddiisa laga filayaa waxaa laynagu majeertay magaranaysa maraykanku maanta inoogu soo jeedtay nabadgelyada iyo horumarkan inagoo la nimid ka soko waa arrimaha dimuqraadiyadda ya madaxweynaha iyo mataqaanaa markuu wafdigiisa waxaa laga filayaa somalilan markay ku soo noqdaan inay si fiican ay mataqaan u soo bandhigaan doorashooyinka soo socdaa qaabka ay u dhacayaan xilligoodii inay ku dhacayaan iyo u diyaargarowgii madaxweynuhu markuu tegayey uu sii sheegay inay doorashooyinka waqtigoodii ku dhacayaan waxaa kaloo innaga inooga soo kordhay dowladdii adduunka uga awoodda badan ilaahay baa awood leh oo maraykanka ah oo tiri xidhiir toosa sharci gaara ah oo la yidhaha somaliland partnership act oo ah in dhaqaalaha laga caawiyo somalilan in arrimaha nabadgelyada laga caawiyo in arrimaha horumarka laga caawiyo in arrimaha diblomaasiyadda laga caawiyo run ahaantii waxaa dhici doonta in dowladda maraykanku ay soo degto somalilan oo saldhigyo military laga samaysto xeebaha oo ciidamadeenna matala kala duwan ay tababaraan laga furo qunsuliyad halkan ma garanaysa danaha maraykanka ka shaqaysa marka yididiilo iyo rajo fara badan ayaa lagala soo noqonaya waa tahay aad iyo aad baad umahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa dr injineer xuseen aadan cige xuseen dayr oo waraysiga dhinacyada badan leh aynu kula yeelanay magaalada hargeysa gaar ahaan hotel guuleed ee magaalada hargeysa aad iyo aad baad umahadsan tahay xuseen sida wanaagsan iyo sida wanaagsan aad nooga siisay xogta badan madaxweynaha iyo wafdigiisa waana isaga iman doonaa waraysiga